saaxiibada Facebook soo dhawaada intaas kadibna sida aad ka aragtaan ciwaanka live-ka aan ku soo galay ujeedku waxa uu yahay in caawa aan ogaano xog dheeraada oo ku saabsan arrinka hadal haynta ugu badan ka dhalinaysa ama ka dhalisay dhanka Facebook-ga iyadoo inta la ogsoon yahayna hadal hayntaasi ay u dhaxayso Saadaq Qabyaaladiid wiilka la yiraahdo iyo gabadha Faa'iiza Wadani la yiraahdo oo labadooduba ogaanteena Jarmal ku sugnaa laakiin warar kale oo inta ka baxsan ay jiraan Faa'iiza Wadani oo ah gabadha iminka dhankeedu xogtu ay jirto ayaa goorow qadka soo gali doonta iyadoona aad ogaan doontaan warar badan oo la xiriira isla arrinkaasi Faa'iiza Wadani ayaan soo dhaweyn doonaa laakiin adigu aragtidaada marka la eego iyo waxa soconaya guud ahaan maxaad ogtahay su'aalaha ay tahay in aad weydiiso ama aad la jeclaan lahayd inaad Faa'iiza weydiiso ayaan fursad ku siinaynaa iyana inaad maaragtay weydiiso markii qadka ay soo gasho su'aashaada qoraal ahna markii aad soo weydiiso waxa suuragal noqon doonta in aan jawaab dhankeeda ka helno inagoo weydiin doona dadka qaar saaxiibada ah ee daawanayana way mahadsan yihiin hor iyo horaanba iyadoo si dadku inta aan sheegayno iyo inta ina daawanaysaba in ka badan ay xog u ogaadaana aan dalbanayno inaad maaragtay muuqaalkan la sii wadaagtaan saaxiibadiina kale Faa'iiza Wadani oo goordhow inagu soo biiri doonta ayaa soo dhaweynaynaa balse marka la eego wiilkan qoraalka soo qoray oo kamid ah saaxiibadana daawanaya waxa uu leeyahay Soomaaliya wax aan macno lahayn ba macno la isugu yeelaa uu mahadsan yahay saaxiibada dhowrka ah ina daawanaya sidaas oo kalena juhdiga ku bixinaya inay ogaadaan xogtaasi la xiriirta Faa'iiza dareenkeeda iyo wiilka kale dareenkiisa ayaan idin soo gudbin doonaa deeqo gabaad iyana way mahadsan tahay Maymuna mahadsan Dictoresa Bushra mahadsan oo kamid ah saaxiibada qoraalada soo qoraya deeqo gabaad waxay leedahay waxba kama ogi laakiin Faa'iiza waxaan ka rabnaa in ay runta ka sheegto wax jira waa war fiican Maymuun aadan cagay oo ah iyana gabar qaaliya waxay leedahay warka dhaafe Faa'iizo ayaa inagu soo biiraysa hadii ay maaragtay daqiiqadan inagu soo biirtana waxaan suura gelin doonaa inaan Faa'iiza iminka way nala joogtaa saaxiibo dhowrina waa ina daawanayaan waana sababta koobaad ee aan Faa'iiza ayaa iminka nagu soo biirtay sidoo walaal macaane caafimaad marka dadkan ina daawanayana Faa'iiza la hadal ugu horeyntii aad u mahadsantahay aboowe waa ku faraxsanahay horta inaan maaragtay live aan soo fadhiisto muddo badan anoon maaragtay live soo gelin bini aadankana way iska war badan yihiin oo qof walba war buu maanta la wareegaya Facebook-ga waxbaa isdhex qaadayo waxbaa la sheegaya waxbaa la yiri waxbaa ka dhacay waxbaa saana yacni waan fahmi la ahay qorshaha meesha ka socdo iyo meesha u socdo anyway Soomaali Maxamed waxa u mareynayaa inay sugayso warkayga waxaan jeclaan lahaa dhammaan inta nagu soo biirtay barnaamijkani inay sii share gareyso walaalka Cali Muuminna aad u mahadsan tahay sida ixtiraamkii sharafta leh aad iigu soo codsatay aad iigu tiri in aan wareysi kula yeeshaan rabaa waana muhiim waxa meesha jira in la ogaado Soomaalidana waxay jeceshahay maanta marka iraada Cali Muumin waa lug ka jabay waxa la soo wada qorayaa Cali Muumin lug buu ka jabay adoona lagu ogeyn waxa ku sugantaa la ogeyn marka wallahi run sheegna waa ceeb sheeg waxaan ka codsanayaa please inta igu jirto my friends-kayga dhan in ay barnaamijkan ay share gareeyaan daruuri ayaan u ahay inay share gareeyaan waxaa leeyahay share-ka ha lagu qabto intaanan horta aanu u sii gudagelin waa ilaa iyo 2k 3k inuu gaaraa waaye si ay u ogaadaan dadka xaaladda jirta oo rasmiga ah Faa'iiza ma san tahay marka koobaad hadii aan ku weydiino caafimaad qabka muhiim ah
bal marka koobaad caafimaadkaaga nooga waran. والله هرت علي وآذى أوكي عنها الحمد لله شكر بالعالمين عافمات ربي بابحية إله سبحانه وتعالى نوحواي إله سبحانه وتعالى نوحواي أسجع يا أود إسكاله ويكون هسين دمان أنت إلى سو حريرتي صناعة شعل وناجي شعل الدنين يا عافمات كيجا marka dadka qaar waxay ku leeyihiin naag asxaan male naag asxaan male naag asxaan male hoo istaad naag asxaan ay ku leeheen waxa rabaa inaan ogaado asxaan darada aniga aan galay iyo abaal darada aan galay inaan ogaado ayaa muhiim ah yana hadalka ku sii dheeraanin naagna waxa la yiraahdaa qol naagna xirig baa xiran ninka ragaana qol baa xira saadiq waa wiil walaalkeeya abaal buu ii galay asxaan oo sameeyay anoo waliba yani qarashkayga la baxayo oo jeebkayga maamulanayo ayuu wax walbana ii sameeyay tan koobaad tan xitaa ma ahan cali muuminow 24 saac in la dhaho la yiri oo yiri social media la isla barbar kaco waxa jirtay in aan maalmahan baraha bulshada kala kulmay caqabado fara badan siiba shalay iyo maantay horta intii caynayso ajri xasanaad Allah ka siiyo intii duceynaysan ajri xasanaad Allah ka siiya leeyahay waxa maalmahan isdaba yaacayay barnaamij Faiza wiilkii bay xirtay xabsiga geesay waa la jir dilay wax walba la sameeyay dadkan hadda idaawanaya boqolkiiba 88 waxay joogan Yurub waxay yaqaanaan xeerka Yurub yaala waxay og yihiin dhaqanka Yurub yaala qofka markii la xirayo dacwada ugu horeyso waa inaad dukumeenti aad la tagtaa cadeyn ah oo qofkan aad ku xiraysid laba waa in boolisaha ka saxiixa qofkan ina xabs u taxaabaysid oo dambi ah ku haysatid saddex waa in qofka lawyer qabsada afar waa in maxkamad loo gudbiyaa intaasna wax bila dukumeentiga ma socdaan ma ahan saldhiga xamarweyne ee qofka inta lagu xiro la dhahay damiina lagu daayo ma ahan qofka markii lagu dhahay waa la xiray waxba lagu sameeyay waa dukumeenti u baahan yahay walaalkayga aniga abaal buu ii sameeyay abaalku ii sameeyayna maanta asxaan baa ugu haaya run ahaantii qofka binaadinka lama dafiro ma ahan marka in abaalka la isku soo galo waxa aniga aan rabo aan sameey Faiza ilaa sameey waxa aniga aan rabo ma soconayso wadankan haduu i keeno ma ahan inuu madaxa iiga istaago inuu yiraahdo ma ahan waxa aniga aan rabo sameeynaysa inuu abuse gareey ma aha inuu ma aragtay idaho waxa sameey oo aniga amarkayga ku sameey ma aha marka runta waxay tahay waxa uu kula sameey maxay tahay wax la cadeyn karo oo bulshada la wadaagi karo ma tahay ha maxay tahay horta in la iska been abuuraa ma aha asaga waxaan u jeedaa dad dhahaaya Faiza walaalkeedii walaasheeda meel hebel joogan in la keenay rtaan horta aniga inta i taqaano aqoonta ii leh kulli way ku wada jiraan qof amaanta aqoon ii lahayn ma jirto waxa dhacday in maaragtay Facebook live gal Faiza dadka Soomaaliyeed way ku jecel yihiin wax kasta ay ku ogol yihiin ilaa sameey maanta cid iga yeelaysa ma shay kartaa cali anoo Yurub joogo oo meeshii aan rabay aan joogo caafimaadkayga laga sheegay in aan leef inta soo galo iraahdo waxaas u baahanahay cid iga yeelaysa ii sheegadan ku weydiiyay waa hadda natiijadeeda aan la filan karin laakiin sida la og yahay oo dadka daawadayaashana hadii aan mar kale briefing ama waxa kale oo kooban aan siino wiilka ay arinku la xiriiro oo Faizana ay maaragtay markan cabashada ay ka tahay fadhigeeda isaguna qoraalla dartiis loo baahiyay ama xog laga keen ay ahayd in la xiray waan la xiriirnay Facebookiisa waan la hadalnay laakiin inteena waxa u baahanyahay cali waxaan siinayaa hadalka Faiza oo iyaduna la joogta aniga qad fiican ma haysto I'm sorry waxa rabaa horta Soomaali Maxamed in cadeen wax walba meesha la soo istaago qofka markii la xiro
واتنا ما أنت ورقدنا اللي يقول حري بوليساق واكنا محكمة واكنا صحيح فايس واكنا مقلصة يقول إيدسو يقول هاي واي أنا قاعد مقلص يقول إيدينا وولا الكيجا وويل سوماليد وويل يستوى جارو تاني أودي كراي أنا مقلص وجيو ميجا صورة قشة أنا ميجا صورة قشة ميجا صورة قشة إنا ويل ولا الكي أنا أو مانتي دبرك إيه حرتي إن أنده إن حبسي جينا سيكون عكرتا هدي وحي أن ربي أو وحي أور ربي أن سمي واي ما أبا لا يا نقضي ما أسحن لا يا نقضي أبا كم جي علي مؤمن أسيق ورك ما عدينيو أسيق ورك ما عدينيو بني آدم وحا وناق آسميس إن هذا إسكو حمينين Soomaali oo dhan ana asxaan ismayso Soomaali oo dhan abaal ii gasho Soomaali oo dhan maanta dartood ku jooga inta kaligiis kuma joogi runta markii laga hadlo ana hooyada iyo aabay iyo cid kale tamaantay waxa abaalkaas ii galay oo u abaal haya waxa ta Soomaali Maxamed waa dhalinyaro Soomaaliyeed inta shafka ii garacto waa dhalinyaro Soomaaliyeed way ani aan walaalkii aan xabtu geynaa hay ماشي waxaan yaalo waxaan inaba caadi ahayn faa'iza dad kumanaan ah oo kumanaan ahaa baahiyay qoraallo hadalkaas oo dhan wax lagu beenin karo ma noo sheegi kartaan waxaas wax ka jira malahan anaa la taagan anaa afkayga la taagan ma xirin haddii cadeen la igu soo helo la idhaho wiilkaas cadeen ku heshe waxaan diyaar u ahay Soomaali Maxamed waxay iga aamineen wax ka badan inay iga aaminaan waxaan cadeen ku ah aniga waxa muhiim ah inaad ogaatid cali in la ogaado saadaqi ani maxaa isku qaban karnaa maxaa abaal ku noqon karaa su'aasha taala waxay tahay ani heshiis mooy la galay lacag maxaa la dhahay ma wax buu igu leeshiyaan uga baxay ma wax buu dhahay ii sameeyaa uga baxay way aniga abaal aan ku noqon karaa way aan aniga ku noqon karaa maxaa la dhahay dulmile idinka idin weydiiyay bal waayahay way mahadsan yihiin dadka ina daawanaya ee doonaya in ay la socdaan wararka la xiriira faa'iza iyo saadaq qabyaaladiid iyo in wiilkaasi la xiray inkastoo codkiisa iyo muuqiisa iyo maqalkiisa toona aynan haynin oo cudurdaarku uu yahay inaanan haynin goob aan kala xiriirno haddana waxaan caddaynayaa ninka cali aadan muhiimaan aan qoray sheegaysa waxa dhacay in codkiisa ama afkiisa ama qoraal isku noo soo diray xaqiiqo loogu helo ma aysan suuro gelin intaasoo dhan kadib nala joogta oo iminka noo sheegi doonta inta aad maqasheen iyo in kaloo ka badan dadka na daawanaya maaragtay waxa marka koobaad bal waxaad inaga daba geysaa sida ay wax ku soo bilowdeen والله بلا تلا علي مؤمن وان يابنا انيغي وررسن انيغي waa gaare waxaan horta wiilkan walaalkaya waxaan isbaranay bishii 8 bishii 7 ee 2017 Facebook iska baranay ilaa iyo 18 bilaawiisi yani dad caadi oo waxaan ahayn dad isbarta oo Facebook iska bartay wuxuu idhaa faa'iido inaa ku caawiyaa rabaa waan aamini diiday laana waad dareemi kartaa wax kasta oo yaala marka muhiimadda ma ahan in la iska qabsado aan wiilkaas walaalkayga xushmad baan u hayaa abaal buu ii galay wuxuu rabo ha sheego wuxuu rabo ha sameeyo laakiin muhiimadeedu waxa waaye in abaalka ii galay u haayo خلاص wax kale meesha yaala ma lahan hadal badan ahaan ma buuxsho ee tiri oo yiri ee ka dhacdo oo saanay oo kan yeel ma soconayso saadaq waa walaalkayga abaal buu ii galay abaalkiisa u haaya Soomaali Maxamedna warkeeda lagama eed beeli karo Soomaali lama qanci karo cidii aaminays hay aamindo cidaani aaminayne billahi tawfiiq adduunkan arlada ilaahay wuxuu baneeyay dadka hadda isfahmi waa in lagu kala waxo واي مركا لو ليهاي faa'iizo wiilkan saadaq qabyaaladiid adigu noogu aqoon badan tahay markii ay soo baxeen wararkan baraha bulshada lagu faafiyay ilaa iyo xilligan
waan kula hadlayno oo Soomaaliyana ay tahay 7 fiidnimo geeska Afrikada bari iyo daqiiqado ilaa iyo hadda ma wada hadasheen labadiina oo mis hor fariisateen ama telefoon iyo wixii lamid ka wada hadasheen si arrinkan ama hoos loogu xaliyo ama wixii ka runa ama ka been aad isla ogaataan labadiina wuu isoo wacay wuxuuna igu dhahay balan waxa kaaga qaaday inaan Soomaaliyo dhan kugu diro sharafta ka qaado wax baas buu daldalayay aniga cid aan maanta u baahan oo Ilaahay ma jirto iyo waalidkaygi awlaadayda ma garatay wuxuu igu maxaysmaayo I don't know aniga maanta awoodii oo lugihiisa ku jirto igu yacni inuu igula awood badan yahay sheeganaya waxa dareemaa inuu ka hadlayo awoodiisa kaliya waxaan dareemayaa inuu isleeyahay Faa'iise meeshan cid uma joogto waxaad ka samayso waxaan dareemayaa inuu ileeyahay meesha kaligeeda ku tahay madaxa ugu istaag laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka weyn Ilaahay baa joogo anigana waxa waaye waxna igama haleesana alxamdulillah inta muslimna Allah u gargaaro si arrinkan loo xaliyo marka laga soo tago inaad wada hadasheen oo uu hadalada noo sheegto kugu yiri adigu xalka maxaad u aragtaa waxaan ku yiri walaalow haddaad i caysid iyo haddaad i amaantid iyo haddaadan waxba iga waxaysin horta waxba nooma soo kordhinayaan social media waana run maanta haddii aan la dhaho 14 October xasuuqi ugu weynaa ee dhacay 3 days la waday maalintii ugu dambeysana waa la afjaray marka haddii barnaamijkan wato waa 4 maalmood anigana ma aragtay cid inta ii maata qortiga goynaysa ma jirto cid inta ii maata idilaysa ma jirto cid inta ii maata maxkamadda geynaysa ma jirto danta gaarka ah ee bini'aadankana waxa wanaagsan inaan lala beegan sida qaldan ee loo isticmaalayo waxaan dareemaa wiilkaas walaalkay ah inay nagu dhex jiraan nacable inay nagu dhex jiraan isku diraalnimo inay nagu dhex jiraan dad waxyaabo noo kala waxa jirta Facebook-yakayga inta la isticmaalo magacyadeeda lagu qoro lagu aflagaadeeyo kadib hawada laga saarayo caqabadaha ugu badan ee haysta taasa kamid ah caqabadaha ugu badan oo u dulqaaday la taasa kamid ah waxay sameynayaan Facebook ay soo galayaan magaceygii ku soo galayaan sawirkaygii wixii oo dhan sida uu aniga iigu sameeysan yahay lagu soo galaya wax kasta laga sameeynaya screenshot loo qaadaa waa loo dira kabacdina hawada laga saara yani macquul ma tahay abo taasina waayahay maadaama sidaad inoo sheegtay wadan sharcigu aad uga sareeya aad joogto xafiis boolis ilaa iminka ma ka dacwootay oo aad ku sheegayso waxa dhacay la ilaha xafiis boolis ma tagi kara horta aniga luqad ma aqaani meel laga mara ma aqaani meel dadka joog ma aqaani horta maxaa mariya maxaan dacwoonaya maxaan iska dhaafaya horta bini'aadamka maxaa ka qaldan ayaga magaalo ma joogi tuulan jooga booliis meelan ka raadiyo ma aqaan meelan ku dacwooda ma aqaan meelan wax ka ma aqaan war dadka waxaan ka codsanayaa reer Germany dadka Germany ina joog waxaan ka codsanayaa ninkii baawur leh ee baawurka igu imaan kara ninkii igu imaan kara maxaa la dhahay bas inta soo raaco waxaan ka codsanayaa inay ii imaadaan ee xaaladeeda arkaan ay sida wax u jiraan arkaan walaalayaalow inta ii dhow ee reer Jarmal walaalayaalow inta ii dhow ee reer Jarmal Ilaahay baa idinku dhaarshay wax walba indhiina ku arki doontiin Soomaali war la dugduuga ma lahan Soomaali war la qarqariyo taqaana wax kasta waa ogaa doontiin inta ii dhow ee diriska ilaa waxaan ka codsanayaa inay arintan damiyaan ee wax walba indhood ku soo arkaan waayahay dadka ina daawanaya qaar kamid ah waxay leeyihiin sheekadu qofka waxa la weydiiyay maadaama isagu uu yiri lacagii aruurbay tiri sidaas aan isku dagaalnay ama markii aan ka diiday ay igu xirtay adiguna daawadayaashu waxay leeyihiin ma cadeyn kartaa iyadu waxa asaga uu ka dalbaday wuxuu iga dalbaday waxa waaye Faa'iise marka hore wuxuu idhahay lacag 10,000 dollar u baahanahay ani 10,000 meel ka keena ma lihi waxaan dhaa 10,000 dollar intee ka keena waxaan isku dagaalan number 1 taas waaye Canada rabaa inaan aado Faa'iise walaali macaani baasaboor waxa haystaa oo Geneva oo 5 sano ah hadii oo dacwadeeda aala noqdo waxa way Canada rabaa 10,000 dollar rabaa intee ka keena 10,000 dollar ani ilaahay Facebook dadku way ku ixtiraamsan yihiin way ku aaminsan yihiin Facebook ma galay anoo Europe joogana ma galay Facebook live intaas isku khilaafnay
kabacdina wuxuu yidhaha ballan waxaa kaaga qaaday inaa sharafta kaa qaaday inaad saan ku yeelo inaa kan ku yeelo inaa kan ku yeelo hayaa yar waxaa arti samee walaalkay atee marka guud ahaan hadda waxa dhacaya marka la eego ummadda Soomaaliyeed ee hadda ku daawanaysa iyo kuwa kale ee maaragtay muuqaalkan uu sii gaarayo marka la eego baaqa aad u jeedinayso maadaama dadku yaqaanay dadan ku aqoon intaba qoraalle ay soo qoreen oo qoraalle iska soo horjeedaan aragnay iyo kuwa badan oo maaragtay ama lagu ugu taageerayo ama lagu ugu diidayo iyo wixii lamid ah bal haye iyana fariintaada aniga maaragtay ummadda Soomaaliyeed waxa u sheegaa horta ani hadda ku soo waco ano ooynaa hadda ku soo waco cali muumina way aaminaysaa sax ana ku ooynaa marka ku soo waco oo ku yiraahdo cali oo saana jirto laazim way aaminaysaa aftahane ninka haduu aftahan yahayna adduunka dhan oo qariba ana waxa dhilaa walaalkay saadaq waxa magaalada ku wada iska jir adduunkan waa laga tagayaa aakhirada badan yaa nolol kala turjumin yaa nolol kala dhaxgelin yaa nolol kala waxaynin saarabta hadeen qoweysa ma ahan Facebook ina igu gogoosato ma ahan Facebook ana weligay allahay niyadeedu kuma jirin waxyaabahaas wax la mid inaad sheego marka adduunkana u jeedid waa imtixaan waa laga tagi waa la dhiman adigana iilka ila geli maysid asagana iilka lama gelaysid dadkan iswaalwaalayo ee caaytamayo ee habaartamayo ee waxay rabaan sheegayaan aniga waxba igama gelin maanta waxa kaliya u baahanahay waa ilaahay mooyaan cid bini aadan aanu maanta u baahanaa leeyahay maanta aadana u baahantaa ma jirto allah ii keena qadartayda allahna ku qanacsanayo marka runtaa waxay tahay inaan la isla gagamban social media waxay rabaan ha sheegaan waxay rabaan ha googooyaan waxay rabaan ha jarjaraan faa'iidadeedii la ah isma bedelayo waayahay faa'iido wiilka maadaama markii hore aad ii sheegtay inaad iska barateen bara bulsho markii hore oo xaaladdu ay ahayd inaad isbaranayseen iyo sidaad u aamintay iyo reerkiisa ma baratay si haddii biri ay wax yimaadaan sida maanta dhacday oo kale aad ugu yaraan meel aad u laabato dacwo iyo wixii lamid ay noqoto walaa horta aniga arrintaasi iskuma tuxawjin laakiin processkiga ani horta waxaa ku baxday lacag $800 ah hooyaday yani iyo aabahay lacag soo shubaye barnaamij oo xataa oo gifti oo yani asaga waxa bajeebkiis ka bixinaa ma ahayn asaga dacwadii loo fuliyo wix alaale wix qarshan ana baxsanaaye asagana wuu og yahay shacabkana way og yihiin qof aan ogeyn ma lahan ma fahanteen saas tahayne yani alla ayaa og labada qof laakiin yaysan noqonin maalin kasta yaysan noqonin Facebook in la isku maadsado ani maanta waxa iga galmala Facebook inta asaga dhan kasal gareeyo baan adduunkayga dhinac ka gelayaa ma garatee marka maalin kasta inuu yiraahdo faa'iiso maaragtay dad baa lacag kugu soo cuni jiray horaa lacag lagugu soo cunay horaa dad badan lacag weliga social media kama sheegaya dhii jira anoo og in lacag laygu dul cunaayo baan haddana sheegin waayo u sheegaa mataqaanaa يعني waxa inta wanaagsan la fiiriyaa mar walba xumaanta lama raaco wanaaga laga fiiriyaa cali muumin meeqa maqlaysa faa'iido lacaga laga cunay faa'iido lacaga laga qaatay faa'iido lacaga saan faa'iido kana laga weligay social media ano la taagan ma aragteen hebel ayadoo la tirinaayaan weligay dhajal qusin marka faa'iido markii la yiraahdo wararkan isdiidan ee guud ahaan baraha bulshada haysta oo cadeyn ay u tahay ama dhinacii aan heli karno markasta xogta aan ka qaadanayno oo ay sharafna noo tahay inaan kula hadalno rajaynayna in wiilka kale aan asagana dhankiisa heli doono si labadiinaba xoga aan isdiidanin aan kaga helno halkana loo gaaro hadii la yiraahdo waa heshiiya ani wiilkaas walaalkay waay ani waxba uma qabay rumaan raansa been waxaan kula dagaalanay marka maxaan kula dagaali karaa horta waxaan kula dagaali kala meel faa'iido waxaan sameey ma sameey kari okay balan waxaan ka qaaday inaan social media ku ceebeeyo okay waxa ceebay waxa sameey karta sameey that's good wax kale ma biyalaanba intaas la waa shakada in maaragtay wax kale tan ma jiraan ani warkiina hada si wado caloojeedu soo fagfagana diyaar uma ihi dadkan wada ayaga dhan maaragtay candufta kansarka qabanay aniga ma dhageysan karo hadaladooda ma fahanteen dadkan intii aaminsan way aaminsantahay intaani aaminsanayay aaminsan haday rabaan horaha u socdaan laakiin waxa ogahay in ay
wax walba ay yihiin qof walba wax ii sameynaa asxaan ii sameynayo qof walba asxaan ii sameynayo waxa ku daba xigta dantiisa qaar oo qaaska u wato war weligaa ma aragta adii anuu xataa anuu yani dadka ogeed oo sa aragtay ila dhaqmaano xataa la taagan social media ma aragtay ma la istaagi karin mana li dameer xumadaas dhig xumadaasna iguma jirto guud ahaan marka si arrinkan xal loogu gaaro daawadayaasha qiimaha badan ee nala socda waxaan u sheegaynaa haddii ay suuragal noo noqoto inaan helno deeq golaad su-aal bay isku weydiiso ah faa'iido hooyada xaggee bay ugu keentay lacagta waxaa jira wiil walaalkiis oo Soomaaliya joogo oo la dhahayo aadan oo la dhashay asaga oo ka weyn oo aadan la dhahayo marna 1500 aadi xawaaye 4000 ilaa 4500 oo dollar aan lambarkiisa lafta hormuud oo leeyahay Salaam Bank ee ugu shubtay su'aasha daaqay weydiisay jawaabteedu waa taasa 4500 oo dollar lambar Soomaaliya loogu shubay 3500 na aniga lacag aan haay oo gacanteeda ku jirtaan ku baxshay oo marqaati leedahay gabar u dhahayo safiibeelo oo Turkiga joogtoon wixii aan hela ayad u dhiibi jiro amaani ahayd 4 ilaa 9 ka soo guray marqaati ka tahay daaqay jawaabtaadu waa taasa hadii la rabo in la ogaadana hooyaday numberkeeda idin siina aabay numberkiisa idin siina lacagta meeshaas ku dhiibay waa la og yahay iga dhaaf stresska aniga buuqa ay gelinin iyo walwal iyo walbahaar marka inta ka badina walaalkii ku fogaada ma rabo waayahay arrinkaas soo xalay arrinkaas waa soo joojinaynaa faa'iizo waxaad inoo sheegtaa bal door noocay uu kula ahaa wiilkan markii in lagu soo qaado Turkiga uu kugu yimaado sawiraan aragnay baraha bulshada lagu baahiyay doorku kula ahaa in Turkiga laga soo qaado lagu keeno Jarmalka bal silsiladaas yarta nooga waranayna hadii horta asigi horta dadka wax baa ka qaldan waxa kula Jarmal asaasan wiilkan ay horta Talyaaniga oo keenay Talyaaniga ilaa Jarmalkan wiilal kale ay keeneen oo baabuurkooda igu soo kaxeeyeen dadkan waxyaabaha isku dardarayaan iyo isku dardarina ariihlaha ani wallahi bila wax badan oo caleeshayda ku kaadsanay rabaan inay iga soo dadalaan laakiin aniga karoonaanaay ma fahamtay haye warkaas Israa'iil maxaa ka roonada wadayaasha qaar waxay leeyihiin wiilku haduu lacag ka doonayay gabadha kuma uusan soo qaadi lahayn inay tahay xaaskiisa arrinkaas maxaa ka jirayna waligeeda adduunka dhan lagu kala gataa leenka xaas yaa shaqaas loo sheegay haye inta Yurub joogto dhan xaaskayga waa lagu keenaa waana laga iibsadaa cid allaale cidii taqaana in waxaaskaygu yiri kugu soo qaaday masax baa marka deha xaaskaygu iiga iibsada leenka waayahay halkaas daan ku hakino markii xogahan ay soo baxeen dad la joogtay cid lamaadan ahayn Turkiga aan raahday Jarmalka markaad joogto ma family la joogtaa mise dad saaxiib ah xaalad noocee ku sugan tahay marka loo eego dadka aad la joogto xilligaas aniga waxa ay ahayd dawladda Jarmalka gacanta ku hayso ayagana xaaladda caafimaadtay maaragtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo badan way la nool yihiin wax iga halaysan malahan alxamdulillah waa nabad qabaa xaaladeedina inay isku toostaan rajeena marka waa kaasa marka guud ahaan laga soo tago in shilkan u dhacay baraha bulshada wax lagu baahiyay guud ahaan xaaladii lagu keenay ma ku hirgashay ma socotaa xagee wax maraya markaas waa hawsheedu way socotaa inay dhamaataa rajeena insha Allah marka haddadan ma jiraan wax dad oo kala socda oo sida saaxiiba ama family oo iyaguna nasiin kara ama la hadli kara dadka daawanaya xog intaas ka badan noo sheegi kara wallahi aan hadda meeshan wax family ii joogo oo qaas ah ma jirtaan abtigeeya ii dhow abtigeena waxa waa meel 9 saacadood jirto degan yahay qof kale oo hadda family ima joogan family waxa igu filan umada Soomaaliyeed family waxa igu filan walaalahayga family waxa igu filan inta habeen maalin kor taagan dibkayga dhibaayo family waxa igu filan inta habeen walba tale ila tiiraanyoto xanuunkayga dhibkayga marka family iyo inay yani maba tabinba marxaladaas oo maaragtay cidlada maba tabinba ugu dambeyntii marka kuguma badinayna su'aalaha waan maasanta waqtiga qaligaad na siisay dadkana daawanaya iyaguna way mahadsan yihiin doonaya xoga dheeraad inay ka ogaadaan arrinka la xiriira
daar cali soo isaguna fariin soo qoraya wuxuu leeyahay fifa faa'iido wadani oo kamid ah saaxiibada iminka ku daawanaya dadka badankood wararkan iyo waxa la xiriira un bay maaragtay diyaar u yihiin in xogahooda maqlaan haddii aan isagana dhankiisa ka keeno ama uu diyaar u noqdo saadaq qabyaaladiid wiilkii jarmalka ku geeyey inaad heshiisaan adigu diyaar muu tahay maxay iigu soo celin ma maqlin wiilkii ama qofka dirirtu idin dhaxayso haddii uu diyaar u noqdo inaad maaragtay heshiisaan diyaar muu tahay adiguna heshiiskaas fiisahe saadaq wiilka saadaq la yiraahdo iminka qoraaladiisa isaga dhankiisa ka socda ay baraha bulshada wareegayaan haddii uu heshiis diyaar u yahay ama anigu aan ka keeno adigana aan kaa qaado diyaar muu tahay inaad la heshiiso maba la dagaashani garma horta heshiinayna qofka marka la dagaashanta lama asigle waxaan wada asigle kurbadaan wada asigle wax walba wada asigle yani wax kasta sameeyna aniga xilligaas la taagan yahay waxaan aniga wiilkaas walaalkayga ugu heystaa ma maba dacwad ma naga dhaxayn kartaba see dacwad nooga dhaxayn kartaa waa walaalkay seema aniga wax ku samayn karaa never maxamed xuseen lafoole oo ubaxa caasimada lagu xasuusto wuxuu leeyahay faa'iizo weydii caafimaadkeedu waa sidee waa fariinta ugu dambaysa ama codka ugu dambeeya laga maqli doono guud ahaan waqtigaagan oo kaaga mahad celinayna haye faa'iiza waxaan rabaa waxaan akrinayay komitiyaasha soomaalida horta mida jirta waxay tahay qabiil wax la dhahaa ummadda waa qabiil ayaa ummadda waale qabiilka walaalayaal waa laga fiican yahay adduunka qabiila ugu xun adduunka qabiila ugu xun dad baa hadda qabiilo soo qorayo aniga laakiin uma qabanayo waxaana qabiil u ahay ummadda soomaaliyeed adiga kan kaa dambeeya kan idaawanayo kan maaragtay luuqa ku jiro intaba qabiil melihi qabiil waxaa ii ah qofka aniga wax maaragtay see tahay allah ku caafiyi dhaho marka ummadan wada maskaxda ka wada jiran caafimaad allah siiyo inqaab iyo cadaab intaba waxaa ilaahay ugu badiyaa dadka sidaan camala ee xumaanta jecel oo mar walbeeta dulmiga iyo doofaarnimada la wareego badankooda ilaahay ka cabsada waa la dhimanaa qof walba waxaa ka rajaynaa inuu ilaahay xaggiisa u bato maanta waa adduunyo berina waa aakhiro adduunyadii aakhiradu way kala badan tahay aniga maanta caawaan dhiman karaa asaga wuu dhiman karaa idinka waa dhiman kartiin nafsada malkamoodka derisoo nala yahay waqti naftana laga qaadayo lama yaqaano waqti aan dhimanayna lama yaqaano waqti ilaahay inta noola soo jira ma naqaano ma sikin baa ma saacado baa ma maalmo ah ilaahay ha laga cabsado bini aadankan dulmiga iyo shaydaannimada magaalada kuwada iska dhaafa wallaahi bilaahi tallaahi idinkoo maanta caafimaad qabaan beri caafimaad qabaynin digdigashada waa laga wanaagsan yahay maanta awoodaan u hadlaynaa waa laga wanaagsan yahay saarabna u hadlaynaa waxaan rajaynaa inaad iwa cimri camal qaado doontaan maadaama caafimaad qabtiin caafimaad daradana la iskuguma faano ogsoono caafimaadka lagu sheegaya inuu daqiiqad ku jiro marka waxaan rajaynaa dadka soomaaliyeed inta samaha jecel kor allah ka dhigo inta xumaha jecelne allah soo hanuuni wax kaloo iraada ma garanayo haddaan been sheegay iyo haddaana been sheegayn kolley waa safar asaga gaariyo sii saarnaa doonaa ilaahay af safarkiisa u fuudeeyo meesha u socdana allah nabadgeeyo laakiin waxaa wanaagsan adduunka inaan cuqdad la iskugu qaadin waxaana wax ahayn la iskula dagaalin maanta dad social media noo kala qaadi kara ma ahayn dad social media soo istaagi kara ma ahayn qabiilkan iyo maaragtay iyo qabyaaladan aawadiina iska dhaafa rabbi subxaana watacaala ha idin soo hanuuniyo ilaahay baa mahad iskale oo maanta aniga caafimaadkayga intaan ku keenay laakiin idinkoo kale maaragtay ma la tirsan karo aniga gabar qarna ah idinka hooyada walaalka awooga intaba kulligiinba isku ka mid baan u nahay cali muumin aad baa umahadsantahay barnaamijkaas dad quruxda badan ay igula daadihisay soomaali maxamed inta maaragtay walaalayayga ee samaha ila jecel waxaan leeyahay kor allah ka dhigo inta xumaha jecelna dee hadalkoodaba kuma jiro oo maaragtay dan iyo heelo kama lihi
marka waxaa waaye anigana waan iskan caafimaadi doonaa daahir cali soo aad baa u salaamayaa dikri oo kadalik dhammaan fanaaniinta wariyaasha run ahaantii mar walba igu garab taagan ducada iyo maaragtay iyo wax walbeeto waxaa leeyahay aad baa umahadsan tihiin walaalkay cali muumin adigna waa kaaga mahad celinayaa inta idaawanaysan waxaan rajaynayaa insha allah inuu ilaahay inta xun oo soo hanuuniyo inta wanaagsan inuu ilaahay maaragtay subxaana watacaala caafimaadkooda u siyaadiyo ciddii aad iyo dood kala qabtaan dee waa ila soo xiriiri karaan wax walbana anaa ka shaafi karo caayna meel duleeshi ka geli mayso waxaan ahayna ma noqonayo dhammaan waxaan rabaa inaan umahad celiyo dowladda soomaaliya noocay rabtaba ha ahaato khaasatan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed aad baan ugu mahad celinayaa qof walba oo soomaaliyeedna uga mahad celinaya gabar baa waxay soo qortay wiilka ma iska guursada guurka xoog ma aha qofkii la rabaa la guursadaa qofkaa la rabin lama guursado teedi kale ani naa guur geli karta ma bihi xilligan maxaa ka qaldan marka waxaa leeyahay insha allah dee calafkayga iska sugaya hadduu rabbi raali ka noqdo marka idinkan istajiya calafkeeda sugaysa aad bay umahadsan tahay daawadayaasha qiimaha badan ee nala socday waxaan ka codsanaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa runaantii aniga aabahay iyo hooyadayba aad bay uga qaracmeen arrintan qaar kamid a faamilkayga aad bay xanuunsan yihiin walaalayaalo waalidkayga yaa la moraal jebinin xanuunan lahayn yaa lagu ridin anigana xanuuna wallahi xiligaas ayna la hadlaayo maskaxdayda ma fadhiso waayahay faa'iza wadani aad bay umahadsan tahay oo juhdigaas dheeraadka in gula bixisay gurigeeda uga soo tagtay masaafana usoo goysay si internet fiican inta u hesho daawadayaasha ay ula hadasho waxaan u mahad celinayaa saaxiibada dhowrka ah ee barnaamijkan daawanayay waxaan idiin ballan qaadayaa in waqtiga ugu horeeya iyo sida ugu dhaqsiyaha badanba aan idinla soo dhaweeyo live-na aan maaragtay ugu yaraan isugu dayno inaan usoo fariisano sidan oo kale saada qabyaalad diid oo isaguna qoraallo isaga arrinkiisa ka hadlaya baraha bulshada lagu faafinayay waxaan salaameynaa waan u mahad celinaynaa faa'iza wadani oo waqtigeeda qaaliga ina siisay faa'iza waad mahadsan tahay 1 jeer waan ku mahad celinaynaa daawadayaashuna way mahadsan yihiin saadaq ayaad goor dhow inaga filataan inagoo ugu dambeynna inta labadooda isku keenna natiijadooda heshiiska ah sida ay noo sheegtayna faa'iza wadani loo kala warqaaditaas natiijo farxadeed ayaan idinkaga keeni doonaa intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo waad mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha badan caafimaad badan